Kumuha Bob Marley Robert Nesta Marley oo ku magac dheeraa Bob Marley wuxuu ku dhashay tuulada Saynan ee waqooyiga dalka Jamaica 6 February sanadkii 1945. Aabihii wuxuu ahaa kabtan ka tirsan ciidamada badda Ingiriiska wuxuuna ahaa cadaan dhalad ah. Aabihii deegaankaas ayuu ku guursaday Bob Marley hooyadiis oo ahayd gabar madow Jamaican ah. Markii uu dhashay wiilkaanina oo isaga tagay maadaama ay qoyskiisu cadaadis ku saareen inuu isaga go'o gabadhaasi madowga ah. Sidoo kale wuxuu guurkaasi u horseeday in laga eriyo ciidamada badda Ingiriiska. Ugu dambeyntii aabihiis wuxuu dhintay Bob Marley oo 10 jir ah kadibna hooyadii waxay la guurtay caasimadda Jamaica ee Kingston si ay shaqo uga hesho halkaasi. Bob Marley yaraan ayuu waxbarashada kaga tagay wuxuuna ka shaqo galay warshad alxanka sameysa. Wuxuu ahaa wiil yar oo aad u jecel muusiga iyo heesaha wuxuuna dhageysan jiray heesaha ka baxa idaacadaha. Bob Marley wuxuu isaga hayaamay Jamaica wuxuuna aaday Mareykanka halkaas oo ka shaqeyn jiray hotel uu dhulku masixi jiray wuxuuna dib ugu laabtay Jamaica wuxuuna aasaasay koox fanad muusiga ka shaqeysa. Isla sanadkaasina wuxuu qaatay diinta Rastafariga oo ah caqiido aaminsan in asalka aadamaha iyo wax walba ay ka yimaadeen Afrika. wuxuuna ka soo horjeeday in dadka madow la cunsuriyeeyo wuxuuna noqday shakhsi caan ah oo adduunka malaayiin taageero ah ku leh. waxaa jira dad badan oo aaminsan inuu yahay rasuul koonkan loo soo diray wixii uu sameyn jirayna inta xifdiyo sidoodii u fuliya. Bob Marley wuxuu dhintay kansar kaga dhacay jirka wuxuuna dhintay 11 May sanadkii 1981 balse waxaa la yaab noqotay 31 sano kadib inuu soo ifbaxay basaaskii dilay Bob Marley isaga oo qiranaya inuusan kansar u dhiman ee isaga dilay. wuxuuna yiri ninkaas oo la yiraahdo Bill Oxley waxaan ahaa basaas ka tirsan hay'adda sirdoonka CIA Mareykanka waxaana la dhex maray annaga iyo ninkaasi iskhilaaf iyo kala aragti duwanaan waxaana u soo jeedinay arrimo siyaasadeed oo nagaga aragti duwanaan taasina waxay keentay inaan ku darsano liiska dadka aan dilayno. wuxuu yiri waxaan ogaanay inuu Bob Marley aad u jecel yahay ciyaarista kubadda cagta kadibna waxaan soo sameystay aqoonsi been abuur ah oo aan ku sheeganayo inaan ahay wariye ka tirsan wargeyska The New York Times waxaana u sheegay inaan wareysi ka doonayo. xilligaasi waxay ahayd 1977 oo uu joogay London asaguna ma uusan diidin inuu hadal la yeesho wargeyskaasi caanka ah waxaana horey ugu soo qaaday kobo kubadeed oo cagtiisa lagu qiyaasay. markii ugu horeysay ee uu kobahaasi gashadayna waxaa mudday cirbad aan kobaha dhexdooda ugu diyaarinay. cirbadaas ayaana kansar u horseeday waxaana ka cararaynay in la ogaado qofkii dilay iyo qofkii ugu dambeeyay oo la kulmay. muddo 4 sano kadib waa uu dhintay Bob Marley waxaana dilay maasoniyada oo adeegsatay CIA Mareykanka.